Assalaamu calaykum daawadayaal. Eebbe ayay mahadi u sugnaatay. Safar qof walba oo muslim ah aad ugu hamiyo ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 19 December 2022 Ilaahay noo suura geliyay aniga, hooyaday, walaashay iga weyn oo iyaduna iyo hooyaday labaad iyo xaaskayga. Waxaanan ka baxaynaa abaarihii 5:00 aroornimo gegida diyaaradaha ee Jomo Kenyatta International Airport kuna jihaysanahay halkaa iyo magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. Annagoo ku sii soconna gurigii barakaysnaa ee Baytullah Makkah al-Mukarrama, Kacbadii Ilaahay. Waxaanu soo gaarnay abaarihii 12 duhurnimo gegida diyaaradaha ee King Abdulaziz International Airport ee magaalada Jidda. Waxaa halkaas nagu sugayay oo nagu soo dhaweeyay madaxii shirkadiina waday ee Ali Business Solution oo uu hogaaminayay gudoomiyihii shirkadda walaalkeen Maxamed Cumar. Waana kuwana hadaladiisii soo dhaweynta ahay. السلام عليكم وولالكين محمد عمر هجاميها تيم علي بيزنس كسو دوادا جدة يو سعودي عربية حدنا وحان سي آدي دونا هالكا يو غريي براكيسنا مكة المكرمة واتكم هالسنتهين إنات نودورتان إنان إذن خدمينو. markaan ka tagnay Jidda waxaan cagta saarnay laamigii weynaa ee aadaya Makka. Jidda iyo Makka waxay isu jiraan masaafo dhan 1 saac 88 kilomitir. عبار مركان سعناي وها حوغا خطبت إيا دردارا نو بلابي تيمكي علي بيزنس تكبيرتي أيانا الحلقة شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك abaarihii 4 bargalabnimo ayaan soo galnay Makka. waxaan nimid hoteelkii ay noo diyaarisay shirkadiina waday ee Ali Business, Hotel Yasmin Al Majdi. maasha Allah, hotel aad u qurux badan oo xaramka u jira 5 daqiiqo oo loo lugayn karo. markaan nasanay muddo 2 saacadood ayaa waxaan soo aadnay xaramkii si aan u gudano waajibaadkii nasaarnay oo aan u cumreysano. markaan cumreysanay maalintii koobaad, maalintii nabad waan iska nasanay, xoogaa magaaladan aadnay shopping iyo waxbaan iska soo samaysanay. waan iska soo magaaladan si fiican u soo dhexmarnoo xaramkana si fiican u soo dhexmarnay. salaado badan aan ku dhex tukanay xaramka oo salaadii faralka ahay duhur iyo casar iyo salaad subxi iyo isha. iyo maalintii saddexaad ayaa company-giina waday ee Ali Business waxay noo kaxeeyeen ziyaaraad. waxaan soo aadnay meelo kala duwan. halkan ayaan ka bilownay waa buurtii Jabal Nuur Qaaro Xiraa oo ah meeshii uu Nabigu sallallahu alayhi wasallam kaga dhuumanayay gaaladii. buurta fuulisteeda waxay u baahan tahay in loo soo tabaabushaysto, waqti badanna way rabtaa. marka maadaama uu waqtigu ciriiri ahay, dad waaweynna nala socdeen oo aysan fuuli karin buurta, waan ka sii soconnay. waxaan aadnay halkaas iyo buurtii Carafa. gaaladii Qurayshay waxay ka soo qaatay marka waxay dhahaan waxyaabaha waxay ka mid tahay diilada 3 maalmood oo halkaas ku jireen oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku ilaaliyay. waxa way waa amal waa rajul iyo sidoo kale tay iimaan. qofka haddii lagu imtixaamo nooc min ad-diin in yani diintaadii ay halis gasho, gaalo maxay ku soo hujuunto, meel laga tira badan yahay oo dad gaalo ay kaaga tira badan yihiin aad ku nooshahay, aynu soo istaagnay bankii Carafaad oo buurtii Carafaad ay ku taalay. bal ila daawad say u egtahay meesha barxadda.
لا معلش معلش. Ya, ya, silakan. Halo. السلام عليكم ورحمة الله. يعني دور لينا دور لكن دور خلاص دور والستين وين يشوفوا كل واحد دورة markaan kasoo dhammaanay booqashadii buurtii carafaad waxaan horey usoo marnay Musdalifa waxaanan kusoo noqonay hoteelkeenii 2 maalin kadib waxaan soo aadnay magaaladii barakeysnayd ee nabigu sallallahu alayhi wasallam ku aasnay iyo masjidkii nabigeena ee Madiina al-Munawwara. Madiina waxaan booqanay qabrigii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan kaloo tagnay rawdadii ee uu nabigu sallallahu alayhi wasallam dhahay waa beer kamida beeraha jannada. بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد محمد عمر هoggaamiyey tiim Ali business waxaa inoo soo dhamaaday acmaasheenii cimrada ahayd ee aan kusoo gudnay baytillaahi waxaan ka baxaynaa maanta Maka waxaan kusii jeednaa Madiina Allah idin barakeeyo khiyaarteyda waxaan la socdaa tiim gaaray ilaa iyo 4 milyan insha Allah Allah inoo wadiyo magaaladii Madiina adeegana waxaa idin sameeyey saafis aad ka wanaagsan shirkadda barakeysan ee business waxaan la socdanaa khiyaartan ka dambaysa oo aan soo wada cimraysanay ilaahay ha naga wada maalintii dambe waxaan aadnay ziyaaraad Madiina iyo nawaaxigeeda waxaan tagnay masjid Quba waxaan tagnay masjid Qiblatayn waxaan tagnay buurtii Uhud waxaan tagnay beerihii timirta waana kuwana aad wada aragtaan fiidiyoyaashaas.
بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وهجاميه تيم علي بزنس محمد عمر الحمد لله cimradeena aan ka soo bilownay Makka iyo maanta aan ku sugannahay Madiina gaar ahaan buurtii Uhud buurtii maxay taariikhda lahayd buurtii saxaabada maxay ahaydtay qaar kamida lagu laayay markii ayagoo tobanaan ah ay damceen inay qaniimada la qaybsanayay ay ahayto ay wax ka soo doontaan waa buurtii uu lagu beerkiisa lagu googooyay nabigeena sallallahu adeerkiisa Hamza buurtan fadligeeda maxay ahayto lama soo koobi karo adeegaas oo markaan u qabanay dadka nala socday aan u soo cunraysiinay oo maanta aan ku sugannahay Uhud iyo insha Allah hadda aan tagi doono masjidkii Quba aan ku sii xijin doono qiblatayn adeegan adeeg lamid ah waxaan rajaynaynaa cid walba insha Allah soo booqata inaan u qaban doono anagoo team Ali Business waxaan leeyahay intii soo gaari doonto fariintayda soo dhawaada barakallahu fiikum dagaal ka horeeya jiro badar la yiraahdo oo Maka agteeda ka dhacay oo gaalada aad loogu laayay kadib aarsi ayuu ahaa kan inay matala dagaal labaad la soo qaado nabiga iyo saxaabadiisa Madiina ku sugnaayeen gaaladu Makka ka imaanayeen dagaalku Makka ka soo bilowday dagaalkaas waxa la socotaan Ikrama ibn Abi Jahl oo abihiisa uu ku dhintay dagaalkii Makka inuu hogaaminay dagaalka asaga kadib halkaan uu dagaalku ka dhacay dagaalkaas aad taqaanaa madaafiicda suma adeegsanay dadku way soo hor istaageen hebel baa la is arkay caadi baa la soo arkay dagaalku barxaddan buu ka dhacay marka halkaan buu ka dhacay dagaalku nabiga sallallahu alayhi wasallam marka buurtan waa buurtii Uhud nabiga sallallahu alayhi wasallam halkaan ka bilaabataa ilaa gees kale ku egtahay buurtan way jeceshahay annaguna waa jecel lahay buuraha Madiina way ka duwan tahay iyada way ka fadli badan tahay way ka wanaagsan tahay nabiga asagoo korkeeda saaran asaga iyo Abu Bakar iyo Umar ibn Khattab ayay gilgilatay markaasuu yiri istaag waxa korkaaga saaran nabiga nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo Siddiq oo matana Abu Bakar Siddiq iyo shahiid Umar nabigu sii sheegay inuu Umar dhiman doono shahiid uu ku dhiman doono uu sii sheegay marka buuru nabiga la hadlay wanaagsan qiimo badan taariikh weyn agteena ka dhacday بيت المقدس إلهي سبحانه وتعالى بدليه
kacbada loo wareegay marka labadii kacbo labadii qiblo midna xagee u jeedaa midna xagee u jeedaa laakiin xagee loo tukanayaa dhankii kacbada dhankii kalena waa la wareejiyay ولا واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا علي بزنس سولوشن وكم هتسنتهين سافيسكي خدمتي أدنى قبتين عمر بسات نوقف ذيستين إلهي هيدن كحب بيد ذلك جهدي كتير بدنا نص ميسين مكة إلا from نيروبي airport إلا إيه مكة إلا مدينة ما شاء الله سيارات كي مكة واسمين ما أنتنا وحنكون دحجرنا سيارات كي مدينة وحنجوجنا بورتي أحد ما شاء الله مش هو قبوري صحابة إلهي هون حريصته. بسم الله الحمد لله إخواني ولكن معلم محمد عمر تيم علي بيسنس وقاميه هذا إن شاء الله صهروا بلنقادني طبعا كدن بقى رمضان عمرذي وسمين دونا هداو باهنتهاي فول باكيج أو دن وان إذن سين دونا هداو باهنتهاي تيجت كلية وان كسينينا هداو باهنتهاي فيزيكلي وان كسينينا هداو باهنتهاي هوتيكلي وان كسينينا وحي انت حق او ديري نقلسو حير النمبر دان كسو قوري دينو على دهينا سوشيال ميديا مهسندين